وعند وضيال وررka naga soo gaaraya degmada Dayniile ee gobolka Banaadir si gaar ah laanta barwaaqo aaga loo yaqaano godka Toroboro ayaa waxay sheegayaan in halkaasi uu ka dhacay dagaal culus oo u dhaxeeyay ciidamo ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya si gaar ah ciidanka militariga iyo sidoo kale ciidanka booliska militariyo oo dhawaan lagu wareejiyay amniga magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa halkaasi ku dagaalamay dadka deegaanka oo aan la xiriirnay si aan wax badan kaga ogaano dagaalkan ayaa inoo sheegay in marka hore dagaalka uu ka bilowday lacag canshuur ah oo laga qaaday dad ku sugnaa xarunta laanta barwaaqo degmada Dayniile ee gobolka Banaadir si gaar ah dagaalka waxa uu bilowday kadib markii ciidanka militariga ay dileen mid kamid ah ciidanka booliska militariyo waxaana intaasi xigay in ciidanka booliska militariyo ay soo urursadeen kadibna ay dagaal ku soo qaadeen xarunta laanta barwaaqo ee degmada Dayniile oo ay ku sugnaayeen ciidan militari ah waxaana wararka ay sheegayaan in guud ahaan xarunta laanta barwaaqo ee degmada Dayniile ay la wareegeen ciidanka booliska militariyo waxaana ay wararka sheegayaan in intaysan la wareegin ciidanka booliska militariyo xarunta laanta barwaaqo ee degmada Dayniile uu dagaal dhex maray labada ciidan waxaana jiri kara qasaaro labada dhinac soo kala gaaray balse hadda ma xaqiijin karno qasaaraha inta uu leeyahay wararka waxay sheegayaan in ciidanka militariga aagaasi laga qabsaday waxaana ay warar aan helayna ay sheegayaan in ciidanka militariga ay halkaasi dagaal ku soo qaadi karaan oo ay is urursanayaan inta badan magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaa ka dhaca dagaalada u dhaxeeya ciidamada ka wada tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ma ahan dagaalkan kii ugu horeeyay oo Muqdisho ka dhaca dagaalo hore oo ka dhacay magaalada Muqdisho waxa qasaare kala duwan ka soo gaaray dadka shacabka ah saraakiisha amniga oo aan la xiriirnay ayaa ka gaabsaday inay ka hadlaan dagaalka ka dhacay degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxaana ay wararka aan helayno sidoo kale ay sheegayaan in dhaawacyo ay jiraan oo ciidamada dawladda ama labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay dadka deegaanka ayaa inoo sheegay in xaaladda ay degan tahay balse laga cabsi qabo in ciidanka militariga ay soo qaadaan dagaal waxaana halka lagu dagaalamay haatan gacanta ku haya ciidanka booliska militariga ee dhawaan laga keenay dalka Uganda halkaasi oo tababar ay ku soo qaateen waana ciidanka dhawaanahan la wareegay amniga guud ee caasimadda dalka wili dawladda waxay xal waara ay ka gaari leedahay dagaalada ciidamada dawladda ku dhexmara gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kuwaasi oo inta badan geysta qasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur mararka qaar ku yimaada goobaha ciidamada ay ku dagaalamaan wixii warar ku soo kordha dagaalka ciidamada dawladda ka wada tirsan ee ku dhexmaray degmada Dayniile ee gobolka Banaadir gaar ahaan laanta barwaaqo waxaan idin kula wadaagi doonaa wararkeena iyo muuqaaladeena dambe waad mahadsantihiin isbitaalka Samadeeq u doono adeeg hufan iyo dhaqaatiir takhassul leh daweynta xanuunkaaga waana isbitaalkii ugu horeeyay ee laga hirgeliyay deegaanka Gubadle badqabka bulshadeena waa astaanta Samadeeq Specialist Hospital